dhinacaana waa naga soo galay dhinacaana waa naga soo galay dhinacaana waa naga soo annagoo ku dhima lahaynaan sabtaas cidda aan anu lafla caariya aan iska fariisto oo dhan ayay ka soo bax meesha ha ku dhiman saana gurigii dhan ay naag rafaadeen xal indhahaan aan ku soo jeednaa buurkaas aan ku wada baranay waa dhawaqa maanta ee danyarta Muqdisho oo guryahoodii uu biyo dhigay roobka dayrta oo ka curtay gobolka Banaadir barakacayaashan oo ku nool waaxda koobaad ee degmada Warta Nabadda habeenkii xalay yar iyo weyn hurdo ma ledin guryahooda oo ka kooban jiingado iyo coshado ayaa dhaxal siiyay inay xaalad gaar ah ku qaabilaan roobabkii mahiigaanka ahaa ee Muqdisho maasheeyay Xabiibo Afrax Cali waa haweeney dhowr iyo 70 jir ah oo roobku uu hoy la'aan dhigay maaragtay joodadina ma haysto maanta halalan hudina ma haysto hal bakeeriyo maaragtay sonkorona maaragtay oo islaan isiyana maaragtay iima cayman dhibaatadaas aan hayda murugta le maaragtay dad dan yar oo masaakiin awalba iska ahay caruurtani saaka ilaa iyo iminka afkooda cunto ma saarin waayeelkana warkooda badaa maano Mahad Maxamed oo la daala dhacaysa korinta caruurtan oo rajo ah ayaa gu iyo dayr waxay dhibano u tahay biyaha roobka marka alxamdulillah saana gurigii dhan ay naag rafaadeen xal indhahaan aan ku soo jeednaa buurkaas aan ku wada baranay marka alxamdulillah saana anaga marka adii wixii maalintii soo xamaalano habeenkii dabka aan ku shidanaa ilmaha wixii habeenkii barya isku cunaa maalintii waa iska khashimaysanayaan bis alxamdulillah saas aan ku noolnahay marka barigi raashinkii male la baxay male rooba daay meel ka soo xamaalad male ilmaha biika ilaaliyay ma alaab ma biika dhoorey ma saadana xamaaliya aada waxaan xamaal ku aad karnaba male baan qoys walba tabar iyo xeeladiis ayuu ku wajahay biyaha dadka kaamkan meel taagah ayay xali ku bariyeen tani se waa Aamino Xasan oo qaybta sare ee gurigooda ku ilaalinaysa caruurteeda bismillaahir rahmaanir rahiim roobka qasaarada ii geeyay midaan ka soo qabta karma weligay oo waaba arkaysiinbo oo alaabteedii dharkeygii adduunyadeeda dhan raashinka ilmeeygi cunugii biyo cabo alxamdulillah shukro biyo ilaa hadda ilaa ay saacan buurkaan ka saarnaa ani caruurteeda in xaafadoodu ku taal meel god ah iyo inay degan yihiin guryo aan biyo celis ahayn ayaa isu biirsaday dadkan danyarta ah ma helaan taageero ku filan walow markii ay khatar galaan loo gurmado wala guriga xaaladiisa waatana waa u jeedin sariirihii wixii ilmaha ku seexanayeen waay oo guriga ku hooyanayeen xaaladiisa saanay maraysaa waa u jeedin biyo buuxa gabadhiisa masquushii la gala lahaa biyo buuxa lama gala karo dhulkii baa ka biyo buuxa inkastoo maamulka gobolka Banaadir uu soo booqdo kaamkan markii roob ama dab uu ka kaco haddana lama taro wixii ay u baahnaayeen oo waxay ku taamayaan in loo raro meel macquul ah oo noloshu ay suuragal ka tahay mar walba halkan waa kaamka Elman ee waaxda koobaad ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho oo habeenkii xalay ahaa jidadkiisa iyo gurihiisaba uu biyo dhigay roobkii ka daayay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolka Banaadir sidoo kale waxaa ka leeday raashinkoodii iyo guryahoodii waxayna dareemayaan dhib weyn oo dhanka nolosha la xiriira ciriiri ayay maanta u tahay walow roobku uu yahay raxmad alle oo u baahan in lagu shukriyo Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho